السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد السلام سعيد حاجي waxaan jeclahay maanta inaan halkaan ku duubo gabayar oo aan dhawaan ka tiriyay Imaaraadka Carabta kadib markii ay Soomaaliya oo dhan wada dareentay in Imaaraadku u faragelin ku haya arrimaheena gudaha in la wareegeen dekedeena qaybo kamida saldhigii militariyo Soomaali raali ka ahayn ay furteen sidoo kalena ay kala qaybsanaanta dalka ay si dhiirigeliyeen marka arrimaha ayaa igu dhaliyay inaan taxyar oo gabaya ka tiriyo anigoon abwaan ahayn maartay nin hal abuurka aad ugu dheerayaan aan ahayn waxaan jeclaystay inaan cabirkayga ama maartay inta yar oo aan qorqori karaan oo ka qayb qaato kuna biiriyo Soomaali taariikhdeeda iyo sida waxyaalaha maanta dhacaya inaan wax yar oo tusaale aan ku biiriyo marka hadii aan gabigaas deelqaaf iyo waxaan ku haboonayn ama meeshii cabirkii laga rabay in dhibaatada dalka lagu hayo aan hal abuur ku gaarsiin inaan ku gaarsiin karin taas horta waan ka raali gelin ummadda Soomaaliyeed balse qof walba inta karaankiisa intuu dhihi karo inuu dhaho marka taas ayaan maanta u duubaya gabadhaas ugu dhalisay marka kana taxdi bismillaah Imaaraadka soo sooftagow ayar socodleeya sooyaalka inaad fiirisaa waa wax ku saxan rag hore sahanka ku yimi saaxil iyo xamar Soomaali sida uga kacdana waad la socotaan adinkaas taariikh la socon sida safiihi iyo soo eega waxaan gaalka baday subaxan dheerayn xuriyada sidaan ugu saldhigay soodintii daydka calan samada laga soo jaraa saaka ii suran Imaaraadka soo sooftagow ayar socodleeya Soomaalidu sidii lagu yaqiin ma hasaban kaan nin qabkiisa reeyay ragba calanka uu siday baarlamaan sariigta u kacay iyo salaadiin siyaasiga gadnaan jiray hadeer samihii gareeya kala sooc inay khayr lahayn saami loo fahmiyo culimadu sidii hore markaan way ka soo dabacdo sahwiye khilaafkii badnaa suuliye gabigii iyo aqoonyaha kuwa ka saldhigay sayniskiya diinta aqoonyahanku waa ka saldhigay sayniskiya diinta Imaaraadka soo sooftagow ayar socodleey 100 sano horteed buu kufrigu saaxil soo degay Soomaali shan baa loo jarjaray saynan xoog noqonay sahal kuma kiceen oo ragba suuliyo diray Sayid Maxamed Waatuulaha soo jihaataga ee bariga ragba sirahayo sibiqda qoolaaya oo cadawgu inuu saami helo saabka uga buuxday saqajaanka gaalka inuu soo ragaal celiyo waligeed kuwa sugahayo sina u ciilayna waligeed kuwa sugahayo sina u liicayna Imaaraadka soo sooftagow ayar socodleey yahuudiga sariigta ka roon saaqid carabeed ay gubaystihii isiri jiray adaa iga sii daray gubaystihii isiri jiray adaa iga sii daray sokeeyaha kuwaan moodi jira laga soo galay reer galbeedka dhulku iga sugto siya cadaweyga oo sulx heshiis iyo ku dayay seefta holaceeda ad sababa waataan agsuray calanka Soomaali qurumaha adduunkuna sibay oo la safnaayeen Soofiyeedku waatuu isiray subax dharaareed Kuubaan ku saanadu wata lagu soo jabiyay saacidaad kamaan helin marka Arab safkeedo oo dhan inaan soo kabtana ma rabin tan iyo saacaane inaan soo kabtana ma rabin tan iyo saacaade Imaaraadka soo sooftagow ayar socodleey Itoobiya maxaa ila simay sidigta maandeeq barbarana maxaa siiyo silaca iyo dooray sadkii aan ka soo naamiya Suuriya loo qaat boosaaso sidii loo xirtana waad la socotaan suuq loo riyaaqay ahayd 30 sano Imaaraadsun iyo hoog miyo saabka ii geliyay saldhig ciidan inuu iga furtana ma iska soo goostay qarankoon la socon mar kale may kala soocay Soomaaliland inay dawlad tahay saaxiib u sheegay